madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed lafta garanya geeka daafuri kala fadhiga saddexaad baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankan intiisu dareeri waliba ku qayb galaya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ali Said Fiqi iyo ku-xigeenadiisa wasiir ku dareere xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya umno golo xildhibaanada oo haadari kulankan yaanta badan waliba ku hadleen sharciyada horyaala golaha xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in koreen waliba saxaafadda la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ali Said Fiqi uu soo sharxaad ku bixiyay sharciyada iyo ansixiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wax ka bedelka tariifooyinka canshuuraha waxa kale sidoo kale aan ansixinay sharciga hanti-dhowrka guud waxaa akhriskiisa labaad maraya sharciga shaqaalaha aan rayidka ahayn sidoo kale waxaa naloo keenay sharciga kalluumaysiga iyo kii dhulka dhammaantood waxaan rajaynaynaa goor dhow in maaragtay aan dhexgalno aan ansixino hadduu ilaahay saasaabta waliba ku hadalay kulankan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed lafta gareen waliba inuu soo golo xildhibaanada Koonfur Galbeed ka amaanay sida falyoonka adeega hayaan bulshada iyo matalahayaan aad ugu mahadsantihiin shacabkana aad bay ugu riyaaqsan yihiin xukuumadda oo madaxweynaha ugu horeeyay aan ugu faraxsanahay wax hore loo arkayna ma in golaha shacabka Koonfur Galbeed meel walba oo Koonfur Galbeed joogto la tagi kara ay tagaan ayagoo shacabkooda waxa uu qabo la socdo saan la socono kalfadhiga hadda ugu dambeeyay xildhibaanada deegaanadooda ay tageen labada gees oo Koonfur Galbeed ugu geesaysa labadaba waa tageen ceel barday tageen qurac joomay tageen yeed bay tageen aatay tageen barawana waa tageen oo geesi kala inta u dhaxaysa intaba waa tageen ayagoo shacabka iyo xaaladiisa iyo wuxuu ku sugan yahay qayb ka qaadanayo marka waxaan dhihi karaa waa ku ammaanantihiin shaqadiina iyo dadaalka dheeriga oo aad geliseen matalaadda shacabka iyo waajibaadkiinii dastuuriga ahaa oo baarlamaanka sidaa u gudateen aad iyo aad ugu mahadsantihiin haddana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tii iyo kasii fiican iyo shaqada adag oo idiin taallo saa u gudan lahaydeen golaha xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya horyaalay shaqooyin idin adag oo ku mid yihiin inuu hadooradan hubno golaha mankasar ee dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadii ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Sahal Cable TV Baydhabo.